ku soo dhowow Somali Magazine. Qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah ciidanka militariga dowladda Itoobiya oo 150 kilomitir u jira magaalada Maqalla, cabsida xooggan ee ka jirta magaalada Maqalla, duqeymaha ka dhacaya deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Tigreega, dagaaladii oo iminka la isla galay dhanka iyo gobolka Tigreega iyo warka ka soo baxay jabhadda TPLF. Qaybaha ugu dambeeyana waxaan ku eegi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee xiisadda Raashka iyo Mareykanka. haddii aan ku hormarno wararka naga soo gaaraya ciidanka militariga ee dowladda Itoobiya howlgalka ay ka sameynayaan deegaanada dhacdhanka waqooyi ee dalkaasi, waxaa lagu warramayaa 24 saac ee lasoo dhaafay guule inay ka gaareen dagaalka. ciidanka militariga ee dowladda Itoobiya ayaa lagu arkay magaalada Alamata, kuwaas oo bartanka ay kaga suganaayeen kana tirsan deegaanada xadka ee gobolka Tigreega, laakiin magaalada waxay ka tirsan tahay magaalooyinka waaweyn ee ka tirsan gobolka Tigreega. warar kale oo soo baxay waxay sheegayaan in ciidamada ammaanka ee dowladda Itoobiya shalay gacanta ay ku dhigeen deegaano kale oo dhowr oo ka baxsan magaalada Alamata isla markaana ku xiriirsan wadada aada magaalada Maqalla ee caasimadda maamulka Tigreega. ciidanka dowladda Itoobiya ayaa la soo bandhigay muuqaalo laga soo duubay oo muujinaya dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo ay ka sameynayeen magaalada Alamata, waxaana halkaasi dhiirigelin ugu tagay saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka. in gacanta lagu dhiga magaalada Alamata waxay ka dambeysay kadib markii 4 maalmood ee lasoo dhaafay duqeymo xooggan ay ka dhacayeen magaalada, kuwaasoo dadka deegaanka iyo ciidamada iyo saraakiisha jabhadda TPLF bay sheegayeen in lala bartilmaamaysanayay goobaha ay dadka rayidka ay ku sugan yihiin. afhayeenka jabhadda TPLF Getachew Reda waxa uu shaacu ka qaaday in sidoo kale duqeyn ay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Malazad oo ku yaala xuduudda Tigreega iyo Canfarta. waxa uu sheegay duqeyntaasi inay ku dhinteen 30 ruux oo rayid ah sidoo hadalka u dhigay. Getachew Reda waxa kale uu sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droonta ay duqeymo la beegsadeen gaari yar oo minibus ah oo dadweyne ay saarnaayeen. dowladda dhexe ee Itoobiya inkastoo war aynay ka soo saareen, haddana waxay shaaci ka qaaday in ciidankeeda guulo la taaban kara ay ka gaareen deegaano dhowr ah, gaar ahaana dagaaladii ka dhacay deegaanada Canfarta iyo Amxaarada u dhexeeya iyo dagaalada ka soconaya gobolka Tigreega. dagaalka oo iminka Tigreega la isla galay waxay u muuqanaysaa guushii ugu horreysay inay soo gaartay ciidanka dowladda, maadaama gacanta ay ku dhigeen magaalada Alamata iyo deegaano kale oo dhowra. dhinaca kale militariga Itoobiya waxay shaaci ka qaadeen in ciidanka Tigreegu aysan ka bixin gobolada Amxaarada iyo Canfarta, balse lagu qasbay in ay dib u laabtaan. hadalka wuxuu imaanayaa kadib markii maalintii shalay hogaamiyaha jabhadda TPLF uu sheegay inuu amar uu ku siiyay ciidankiisa in ay isugu yimaadaan soohdimaha dhanka gobolka Tigreega. afhayeen u hadlay kooxda TPLF ayaa qiray in dagaalyahanadooda ay la kulmeen cadaadis gaar ahaana weerarada ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Getachew Reda waxa uu sheegay in askarta Itoobiya iyo Eritrea ay isku urursanayaan meel u dhow xuduudda ay wadaagaan gobolka Tigreega, waxaana uu shaacu ka qaaday inay colaadaha sii hurinayaan. waxaa kale uu ku booriyay beesha caalamka inay ku qanciyaan dowladda iyo taageerayaasheeda inay raadiyaan xal siyaasadeed. taageerayaasha dowladda ayaa laga yaabaa inay u arkaan arrintan inay tahay baaq gargaara, balse iyadoo 9 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar cunto, waddankana uu kala go'an yahay, tani waxay noqon kartaa fursad lagu soo afjaraya dagaalada ka dhacaya waqooyiga Itoobiya. ciidamada dowladda Itoobiya markii gacanta ay ku dhigeen Alamata una ruqaansadeen deegaano kale oo dhowra, TPLF waxay ku dhawaaqeen in ciidankeeda ay kala baxayaan gobolada deriska ah. beesha caalamka ayaa arrintan walaa xooggan ka muujinaysa. Mareykanka hadalkii ka soo baxay jabhadda TPLF waa uu ka hadlay, waxaanu ku tilmaamay inay tahay wadada kaliya ee diblomaasiyadeed ee xal waara looga heli karayo dagaalada ka dhacaya deegaanada dhaca waqooyiga dalka Itoobiya. mas-uuliyiinta dowladda Itoobiya iyagoo hadal ka soo saaray baaqii ka soo baxay dhanka iyo jabhadda TPLF hogaankooda waxay shaaci ka qaadeen intaasi ay tahay hadalka kama dambaysta ee la doonayo in gebi ahaanba lagu qariyo guulaha ay gaareen ciidanka Itoobiya. laakiin afhayeen u hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in tani ay tahay baaqa kama dambaysta, sidoo kalena dhankooda ay doonayaan in xal waara laga gaaro dagaalada halkaasi ka soconaya, balse dhinacyada TPLF looga baahan yahay inay sharciga isu soo dhiibaan isla markaana u hoggaansamaan aqbalidda qaladaadka ay ka galeen deegaanada waqooyiga Itoobiya. ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda Demeke Mekonnen wuxuu booqasho uu ku maray goobihii laga xoreeyay jabhadda TPLF ee deegaanada Amxaarada, waxaana uu sheegay in dib u dhis degdega loo samayn doono dadka deegaanka maadaama TPLF burbur baaxad leh u geysatay kaabayaashii dhaqaalaha. waxaa la soo bandhigay buundooyin tiro badan oo jabhadda ay burburisay, xarumihii dowladda ay ku shaqaynayeen iyo bangiyo gaar loo leeyahay oo ku yaala gudaha goobaha dhanka waqooyi ee dalka Itoobiya.
taliyaha ciidamada guud ee dalka Itoobiya Berhanu Jula iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka ammaanka ayaa dhankooda gaaray magaalada Gasheena oo gacantay ku dhigeen ciidamada Itoobiya lagana saaray jabhadda TPLF iyadoo halkaas ay kula hadleen saraakiisha iyo ciidamada ka tirsan militariga Itoobiya kuna dhiirigeliyay in dagaalka ay sii wadaan sidoo kalena garab istaag xooggan ay u muujinayaan. jabhadda TPLF dhankeeda waxay soo bandhigtay muuqaalo iyo sawirro isdaba joog ah oo ay ku sheegeen xasuuq wadareed ba'an oo ay sheegeen in loo geystay dadka shacabka oo aan waxba galabsan sida ay sheegeen jabhadda TPLF. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykankana dhankiisa digniin ayuu u diray jabhadda TPLF isagoo ugu baaqay inay si degdeg uga baxaan goobaha ay kaga sugan yihiin deegaanada Canfarta iyo Amxaarada isagoo sheegay haddii ay rumuudo ka bixitaankooda inay soo dedejin doonto wadahadaladii la filayay inay yeeshaan dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga Itoobiya. qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegnana Maraykanka waxa uu shaacu ka qaadayaa inay diyaar u yihiin wadahadalo ay la galaan dowladda Raashka taasi oo ku agaadan dhanka ammaanka. mas-uuliyiinta dowladda Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay wadahadal diyaar u yihiin sidaasi waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Raashka Sergey Lavrov oo warbaahinta la hadlay isagoo wariyaasha kula hadlayay kadib kulan uu la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan ee dowladda Bosnia ayaa shaaca ka qaaday in dhankooda ay diyaar u yihiin xaqiijinta ammaanka. waxaa kaloo lagu warramayaa inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan wadahadallada uu ku dhawaaqayo la taliyaha ammaanka qaranka ee dowladda Maraykanka Jack Sullivan. ruushka iyo Maraykanka ayaa waxay isku hayaan xaaladda guud ee ka taagan dalka Ukraine iyo dhibaatooyinka keenay in ciidankii ugu badnaa dowladda Raashka ay soo dhoobto xuduudda ay wadaagaan labada dowladood ee Raashka iyo Ukraine. waxaa kaloo lagu warramayaa in ruushka weli uu sii wado udaabulitaanka ciidamada uu geynayo deegaanada dhanka xuduudda dhaca iyadoo halkaasina ay ka soo horjeedaan naatay inay saldhig ay ka dhigato.